هل كان إنه صافرية دراسة السنة دي فائدة ملان هنصون الفائدة إلا هاي وتير كده واشنطن كو مدنيمو نبض برواقو حسلوني هرمر شنطن قضبات شنطن تير أيام حاليجي فائدة وحنجيل دونا المدنيمة قولي وشيء دونا النبض برواقنا حسلوني هرمرت شنطن قضب كستا أما تير كستا وحن وشريح دونا قولي سيدي هذا أصومر نيوكله داوش ونكسر waxaan jelaynaa markaan daraasada shanta gees wali ku guda jirnaa faa'iidadeeda shantan tiir ayaa maxaa la dhihi jiray faa'iido ah kow midnimo labo nabad saddex barwaaqo afar xasilooni shan horumar haddii midnimada aan ku horumarno runtii midnimada qof walba si uu fahmayaa ama uu fahansan yahay maanta adduunyadan waqtigan aan joogno inkastoo liir adduunyada waa horumartay oo saan waqtigan aan joogno maanta qof walba wuxuu u tartamaa ama u raadiyaa inuu helo nuclear maanta aqliga adduunyadan cusub wuxuu ku dhisan yahay nuclear sida qof walba ku heli lahaa laakiinse maanta nuclear waxa u dhigmaa jira waxaan ka mid ah midnimo maanta adduunyada kuwan nuclear ka haysta maanta haddana maxay u midaysan yihiin qofka nuclear haysta wuxuu gooni u istaagi waayo iyadoo la haysta haddana la midaysan yahay midnimada marka waxay u dhigantaa adoo nuclear haysta bal waaba ka fiican tahay nuclear waxaaba laga yaabaa moogta waxaad isku halaynaysa waayo waxaa laga yaabaa inuuba shaqayn waayoba laakiinse midnimada adoo hal safa haddii lagu arko waxaa laga yaabaa inaan lagu soo degdegin tusaale yaran idin siinaa soomaalida waxaa la dhahaa maanta waa shantaba ka kaaliba laba ka mid oo beri wax isku darsatay taariikhda ay dhigeen maanta adduunyada dirsi ahaan ayaa loo bartaa halkan soo fiiri midnimada aniga saan ayaan u fahansanahay ana idinkuu sheegaa muruqa maskaxda mowqifka muuqaalka magaca intaanoo la mideeyey ayaa midnimaan u aqaanaa hadda qodob inaan usii sharaxna hadda wax faa'iido ma lahan wixii sharaxada ama ka fikiris adaa iskale nabadda shantan qodob ay ku dhisan tahay sideedaba waxa kaa horeeya inaad nabad u haysato waxa kaa dambeeya inaad nabad u haysato korkaaga waa inaad nabad u haysato hoostaada waa inaad nabad u haysato hareerahaagana waa inaad nabad u haysato waayo intaan haddaad nabad u haysanin nabad ma haysatid ka gudub barwaaqada aan sheegaaye shantan qodob ay ku dhisan tahay dhaqaalaha tacliinta caafimaadka dadka inaad dad haysato inaad dal haysato adduunyada waa aragtay maanta taako laysuma ogolo ya qofkii taako isku day inuu kaa qaado qofka u dambeeya inuu dhintaa diyaar loo yahay shantan qodob waa dhaqaalaha tacliinta caafimaadka dadka dalka waqti ma hayno wax badan aan sugaayo xasiloonida okay xasilooni shantan qodob ayaa tiir u ah siyaasadda waa inaad ka xasilan tahay bulsho ahaan waa inaad u xasilan tahay deegaan ahaan waa inaad u xasilan tahay dunya ahaan dunyadaada waa inay xasilooni tahay dunyada xasiloonida wax ka taqaan waxaad ku garanay Soomaaliya inta dagaalada dhacay wax walba xayawaana laga heli jiray maanta markii Soomaaliya dagaalada ay ka dhaceen hal xayawaan oo xayawaanada la yaqaan ma joogaan meelaha xasilanay aadeen dunya ahaan waa inaad u xasilan tahay maamul ahaan waa inaad u xasilan tahay okay qodobka ugu dambeeya horumarka waa kaabayaasha waayo magaalada ugu dambaysa ee dalkeena ku taala gaariga ka soo dhaqaaqa waa inuu meesha ugu dheer u socdo waa inuu daqiiqado u socon karo meelaha laga soo degay sidaas oo kale wax kasta kaabayaasha waxa loo yaqaan sharaxadeeda ma geli doono laakiin daraasadeena gudaha ku imaan doonta iyadoo faahfaahsan kaabayaasha dhaqaalaha waxaa la tidhi wax soo saarka maalgashiga dhismaha teknolojiyada maanta waa qodob maanta cusub oo adduunyada la-aanteeda waa la dhaqaaqi laayahay naftii ayadiyaa la isku sidkayba
teknolojiyada shantan qodob ayaa faa'iido u ah wixii maxaa la dhihi jiray ka fikirisa ee wixii maxaa la dhihi jiray wax ka bedel waa aan ku daynaa kugu mahaysto laakiin aniga aysan ay wax kugu soo gudbinaya waa ku mahadsan tahay waxaana geli doonaa qaybta xigta ee la yiraahdo waa soo sheegnay sababaha keenay faa'iidada daawo ma leedahay geli doonaa